waxa maanta magaalada Burco si ballaaran loogu soo dhaweeyay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo kamid ah warbaahinta gobolka Togdheer isagoo muddo bilaa ku xidhnaa magaalada Hargeysa isla markaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu fidiyay cafis ilaahay Cabdimaalig xornimadiisa u soo celiyay ma hadle cid kastaaba wax fikrad kasta ka qabto waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha dalka Soomaaliland oo aqbalay cafigiisii ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadka soo banaan baxay baanu aad u mahadinaynaa Cabdimaalig wuxuu ahaa nin ummadda qayb ka ah wuxuu ahaa mid danyarta la shaqeeya ummadda masaakiinta u shaqeeya u adeega ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon runtii nin Burco qaali ku ah iyo gobolkan Togdheer runtii nin ka qayb qaatay samafalka iyo u gargaaridda dadka jilicsan Cabdimaalig sidii imika hore sheegay waxaan ku naqaanay nin dad inta waalan inta taagta daran inta xanuunada la il daran inta lugahala inta jilicsan ee gobolkan ku nool iyo dalkaba nin runtii aad ugu gargaari jiray oo arinta caan ku noqday oo dalka dhan runtii looga yaqaan Cabdimaalig arinta haddaan nahay reer gobolkii Togdheer maanta halka aan u soo wada istaagnay aan ku soo dhaweynayna waa wanaagii iyo qiimihii iyo waxtarkii aan ku baranay qiimaha badnaa waxaan filayaa waqtiga kulul iyo inagoo xil sooman oo dadku ay sooman yihiin waan soo koobnaa waxaan aad ugu mahad celinaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay maanta halkan isugu keenay Cabdimaalig oo xora oo kamid ahaa ama aan oran karno waa shakhsiga hormuudka u ahaa muddo dheer in loo gargaaro danyarta iyo sidoo kale dadka dhimirka wax ka qaba ee guud ahaan Soomaaliland ku dhaqan isku keenay soo dhaweynta qiimaha leh oo sameynayna samafal Cabdimaalig Muuse Coldoon oo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaan cafiyay waxa leenahay dadkii jilicsanaa ayaa tabayay dadkii u gurban jiray isaga cidka u ahaa ayaa tabayay waxa leenahay Cabdimaalig mar kale adigoo nabada oo xor ah ku soo dhow gobolka Togdheer Bismillaahiir Rahmaanir Rahiim runtii maanta waa maalin nooga duwan haddaanay saxaafadda gobolka Togdheer ama guud ahaanba saxaafadda Soomaaliland runtii Cabdimaalig Muuse Coldoon ma ahayn wariyo kaliya laakiin wuxuu ahaa samafale runtii waxa si weyn ugu baahnaa guud ahaan dadka jilicsan ee reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer Cabdimaalig xarigiisa waxa si weyn u tabay sidoo kale guud ahaan saxaafadda Soomaaliland maanta waxay nooga duwantay maalmo kale aad iyo aad baan u soo dhaweynaa Cabdimaalig ku soo dhawo in ma garanaysa Cabdimaalig Muuse Coldoon yani kaalinta dadka ugu jireen ma garanaysa uu cafis u sidaayo saamaxo waxaana waliba halka ka cambaaraynaya cidda iyadu codka dadka ka doonaysa ee tiri ninka noocaasaan ka toogan lahaa waa toogan lahaa ma laga yaabo in aad codka weydo oo istoogato waxaan marka koobaad waxaan leeyahay Cabdimaalig ku soo dhawo magaalada Burco waxaan marka labaad u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo garwaaqsaday in uu soo daayo Cabdimaalig ma aha wariye qura waa samafale dadkii samafalka uu waday in halkaas ay uga sii wada doonaa waxaan leeyahay ku soo dhawo magaalada Burco ilaahay ka soo saaray jeelkii madaxweynaha Soomaaliland aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa weeyaan dee way aragtaa ummaddu sidoo maxay tay ugu shaqayn jiray iminkana ilaahay baa mahadle waa ku soo dhaweynaynaa maxay tay magaaladiisa Burco iyo gobolkiisii aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa alxabaana faraxsanahay ilaahay xad baan faraxsanahay waxaan u mahad celinayaa oo aan yani aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadweynaha gobolka Togdheer gaar ahaan reer Burco sida diiran soo dhaweeyay isxilqaamay gartay inay maxay soo dhaweeyaan runtii yani aad iyo aad baan maxay ugu faraxsanahay waxa weeye waanad maxay mahadsantihiin barakallahu fiikum hore maxay shir jarayd baan u qabtay waxa weeye waanan maxay mahadnaqay cidii mahada lahayd Allah baa ka koow ah ilaaha suura galiyay inaan xorriyadeedii dib u helo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii ilaahay baa mahad leh yani runtii waxaan kala u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaan oo yani ii fidiyay cafis madaxweyne waxaan leeyahay ilaahay khayr ku abaal mariyo haddaad maxay tahay garatay waxaan kala u mahad celinayaa yani cafiska madaxweynuhu go'aanka ku qaatay dadkii yani maxay ku dhaliyay ee ku dhiiri galiyay ee u soo bandhigay waxaan u sheegayaa maxay dadweynaha Burco iyo Togdheer de kulli waxa weeye bilay ahayd intii aan maxay socotay maxkamaddu iyo intii aan xidhnaaba waxa weeye waxaan idin soo gaaray Cabdimaalig Soomaaliland buu ka soo horjeedaa waxba aad ka idin soo gaaray Cabdimaalig qarannimada ayuu ka soo horjeedaa Soomaaliland yani arrimaha soo dhan buu ka soo horjeedaa horena waan u sheegay Cabdimaalig kama soo horjeedo maxay Soomaaliland waxa weeye waa wax maxay wax u eeg la sameeyay oo dadka maxay loo muujiyay ama la dhexgeliyay si leega hor istaajiyo arrimo badan oo aan cadawga Soomaaliland gacanta ku fiiqay farta ku fiiqay si arrinka loo khalkhal geliyo ayaa waxa weeye la isku dayay in ikhtiyaar shakhsiyadeeda la dilo Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga RTN magaalada Burco